Shaaha madow waa mid ka mid ah kuwa lagu isticmaal badan yahay guud ahaan dunida. Waxaa laga soo jaraa caleenta dhirta loo yaqaano Camellia sinensis. Hawada ayaa loo dhigaa isla markaana waa la qalajiyaa waxaana lagu guraa bushqada loogu talagalay. Marka caleenta shaahan lagu kariyo biyo kulul 5 daqiiqo gudahood waxa uu ku siin karaa kaalori aad u hooseeya oo shaaha madow kuwaas oo caafimaadka waxtar u leh. Haddaba waxaan soo gudbin doonaa faa'iidooyinka shaaha madow oo lagu daray liin dhanaan, faa'iidooyinka caafimaad uu qofku ka heli karo. Balse intaynan u gudbin qaybta xigta qadar yar oo ogeysiisa. Fadlan ku xidhnow kanaalka oo taabo subscribe. Sidoo kale fura gambaleelka ama joogitaanka birta. Liinta waxay qani ku tahay vitamin B6 waxaa sidoo kale laga helaa waxoogaa vitamin B6 ah, macdanaha iron, magnesium iyo sidoo kale calcium. Qaadashada maalin kasta waxa ay si habsami leh u korisaa isla markaana dib ugu sameysma nudaha. Waxay sidoo kale ay xoojisaa nidaamka difaaca ee jirka. Ku darida shaaha madow liinta waa mid faa'iido leh. Sidoo kale waxaa la og yahay in shaaha uu hoos u dhigo nuugitaanka birta ee habdhiska dheefshiidka. Hase ahaatee marka liinta lagu daro waxay kordhisaa ama sidoo kale ay ka qayb qaadataa in dheefshiidku si sahlan u nuugi karo macdanta loo yaqaano ironta. Haddaba isku dhiska labadan waa shaaha madow iyo liinta waxay xoojiyaan ama ay ka shaqeeyaan in qofku ka helo caafimaad aad u wanaagsan. Miisaan dhimida shaaha madow waxaa ku jira caffeine tan oo carisa in hoos loo dhigo abateedka ama cunno qaadashada qofka. Tanna waxay qofka ka caawinaysaa in laga hortago inuu qofku qaato cunno badan taasoo markaa keenaysa in miisaan badan qofka uu fuulo. Marka aan shaaha lagu darin waxyaabaha macaaneeya sida sonkorta ma laha wax kalooriya, laakiin liinta waxaa ku jira 8 kaloori. Tani ma aha mid dhibaato leh isla markaana miisaanka qofka ma aha mid wax dhibaato u keenaysa ama sare u qaadaysa. Sidoo kale shaaha madow waxaa ku jira catechins. Tani waxay awood u leedahay inay ka hortagto inaanu jirka nuugin waxyaabaha duxda ah kuwaasoo markaas si aan toos ahayn miisaanka qofka sare u qaadi kara. Hase ahaatee marka shaaha aan lagu darin sida caanaha, sonkorta iyo waxyaabaha kale waxay ka dhigan tahay inaanu lahayn wax kalooriya. Tani waxay hoos u dhigaysaa miisaanka waana handaan qofku uu hoos ugu dhigi karo miisaankiisa. Sidoo kale waxaa talooyin lagu soo jeedinayaa jeex liina iyo koob shaah oo shaaha madow ah in qofku isticmaalo saacad ka hor intaanu seexan. Tani waa mid faa'iido leh caafimaadka qofka hoosna loogu dhigi karo miisaanka. Nadiifinta jirka labadoodaba caffeine iyo nuudka laga toojiyo liintu waxa ay sare u qaadaan in xaddi fara badan oo kaadi jirka dibadda looga saaro. Waxay sidoo kale tani soo degdejisaa in si dhaqso leh jirka dibadda looga saaro sumaha. Tani waxay si gaar ah faa'iido ugu leedahay dadka ka cawda caabuqyada ay keenaan bakteeriyada fayraska tan oo muddo kooban jirka dibadda looga saari karo. Hase yeeshee ka hor intaan isticmaalin faa'iidooyinkooda la tasho khabiir caafimaad oo khuseeya xanuunkaaga si aad u ogaato saameynta iyo faragelinta ay maadada caffeine ee shaaha madow laga helo ay ku yeelan karto shaqada daweynka aad u qaadato xanuunada aynu soo sheegnay. Cuna xanuunka ku darida malab shaaha madow liin tani waa dawo waxtar leh oo shaqeynaysa gaar ahaan cuna xanuunka iyo hargabka. Marka laga hadlayo caffeine laga helo shaaha madow waxay hoos u dhigtaa xanuunka qofku uu dareemayo. Liinta ayaa waxay ka saartaa sunta halka uu malabkuna uu ka qayb qaato inuu daweeyo cuna xanuunka. Qaadashada maalintii 2 koob oo ka kooban liin dhanaan, malab iyo shaaha madow tani waa dawo meesha ka saaraysa infekshanka ama caabuqa si dhaqso leh. Waxay sidoo kale ay sumaha ka saartaa isla markaana caawisaa habdhiska dheefshiidka. Shaaha madow iyo liinta waxaa ku jira antioxidants kuwan oo la dagaalama free radicalska oo ah waxyaabo markaa jirka dibadda ka soo gali kara sida cunto qofku cunay, dawo iyo sidoo kale hawada la neefsado. Shaaha waxaa ku jira trifalvalanes halka ay liinta ku jirto ascorbic acid ama vitamin C. Isku dhiska labadan ayaa jirka ka saari kara free radicalska. Waa kuwo awood badan isla markaana ilaalin kara inaanu dhaawac soo gaadhin habdhiska neerfayaasha ama dareen wadka kuwaas oo keeni kara xanuunada Parkinson's iyo sidoo kale Alzheimer oo keena in qofku noqdo qof markaa gariiraya ama markaa xillaawa. Si kastaba antioxidantska ayaa ah kuwa markaa difaacaya inaan xididdadu noqonin kuwo adag. Sidoo kale waxa ay ka hortagaan dhagxaanta kaliya ku sameysma iyo cudurrada wadnaha.